arrinta labaad oo arrintaas la xiriirta oo aan rabo inaan ka hadlo waxa waaye xaaladda hadda ka taagan dowlad goboleedka Galmudug waxaan rabaa inaan halkan ka sheego hadalka madaxweyne Madoobena waa ku jirtay aad ayay u sahlan tahay in wax la dumiyo laakiin aad ayay u dhib badan tahay in wax la dhiso waa ogsoontihiin dhamaantiin dhibaatada laga soo maray iyo dadaalka laga soo maray in maamulkaas la dhiso waa la socotiin marxaladaha la soo maray waa la socotiin inay hor yaaliin weli caqabado loo baahan yahay in laga gudbo oo ay ka mid tahay wada hadalka iyo walaaleynta ku sunna wal jamaa ayadoo meeshaas joogto in maamulkii hadda carqalad la geliyo oo gadaal laga soo bilaabo wax la aqbali kara maaha sidaas daraadeed waxaan ugu baaqayaa dhammaan inta ay arrintaas khusayso in cagta loo dhigo la qaboojiyo xiisadda wada tashi la geliyo lagana hor dhigo wax walba sidii maamulkaas loo badbaadi lahaa xukunkuna u sii socon lahaa